Dad kor u dhaafaya boqolaal ayaa maanta shirkadda Camel Group of Company xarunteeda beledweyne ka qaatay faa'iidada lacagtii ay maalgashteen. Tani ayaa ka dhigan in ay tahay shirkadda Camel Group of Company shirkaddii ugu horeysay oo suuqa sarifka lacagaha qalaad online-ka ee Forex-ka loo yaqaano ka shaqeysa oo beledweyne ku taala, oo macaamiisheeda guddoonsiisa faa'iidada lacagtii ay horey u maalgashteen dhowr bil kadib, maadaama dhaqdhaqaaqyadii ganacsiga ee dunida ay si guud ahaaneed saameyn ugu yeeshay caabuqa dilaaga ah ee Covid-19. Qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda Camel Group of Company xarunteeda beledweyne ee maanta qaatay faa'iidada lacagtii ay horey u maalgashteen qayb ka mid ah oo la hadlay bahda warfidiyeenka ayaa u mahad celiyay mas'uuliyadda iyo ammaanada dheeraadka ah oo ay muujiyeen maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Camel Group of Company. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacaygu waa Maxamed Cumar Weheliye. Allah ayaa mahadska leh. Allah ka soo waxa mahadska leh Camel Group maamulkeeda iyo shaqaalaha. Waxa maanta aad u faraxsanahay wixii aan ka suugayn inaan maanta helay waqtiyada cakarnaay coronavirus-kii oo adduunka dhan kala xirmay ayay maanta noo adeegeen. aadan ugu faraxsanahay wixii aan siiyeen. waxaan rajaynayaa sidii hadda ku wadaan si ka fiican inay u sii wadaan shaqada, walow waa ogsoonahay shirkadihii kale asaagooda inaysan weli wax bixin. waa u mahad celinaynaa mas'uuliyadda iyo dadaalka dheeriga ay saareen shirkadda Camel Group. aadan mahadsantihiin. anigoo ah Cabdiraxiin Odawaay Maalin, waxaan ku faraxsanahay maanta inay u yeerto kambaniga Camel Group Forex-ka kadib markii muddo badan caalamka dhibaato ka jirta darteed iyo koronaha dartiis ay caqabad ku noqotay, dibna ay u bilowday inay lacag bixiso. maantana faa'iidadeedii qayb ka mid ah ay ku mahadsan yihiin inay siiyaan wixii dhimanna laga heli doono, dibna ay shaqooyinkeedii ay u furmeen sida Forex-yada kaleetana ayna ku dabacdayno. maanta beledweyne qaybtii ugu horeysay ay bixiso lacagtii faa'iidada ay lacagteedii ay shaqaysay ay ka mid yihiin. aad baan ugu faraxsanahay, waan ugu mahad celinayaa. Assalaamu calaykum. Aniga waa Bashiir Cumar Macalin. iyadoo coronavirus uu jiro, waxaan u mahad celinayaa in shirkadihii kale ayagoo xiran yihiin inay Camel ayna siisay lacagtii faa'iidada ahayd. waxaa mahad iskale Ilaahay iyo kambaniga. Saciid Cismaan Nuur, maamulaha guud ee Camel Group of Company xarunta beledweyne oo dhankiisa hadlay, ayaa sheegay in kambaniga Camel Group of Company oo horey looga bartay hab daahfuran oo macaamiishiisa uu ugu adeegayo uu aad ugu faraxsan yahay in maanta mar kale kambaniga uu dib howlihiisa u bilaabo muddo dhowr bilood ah kadib. faa'iidada lacagtii ay horey macaamiishooda u maalgashteen qayb ka mid ahna maanta ay helaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaaha mahad leh. haddaanu nahay maamulkii Camel Group of Companies gaar ahaan qaybta beledweyne, maanta ilaa waxa uu inoo suurageliyey in howlihii paymentska ahaa ee customerskani inaynu dib u bilowno, iyadoo ognahay in xaalad adag uu adduunka guud ahaan u galay, waqti adag oo coronavirus lagu jiray, iyadoo weliba xaaladaas ay taagan tahay ayaa haddana maanta ilaa waxa inoo suurageliyey in howlihii dib u bilowdaan. ay customerskii aynu u adeegi jirnay, adeegii aan u sameyn jirnay aynu howlihii aan dib u soo celinno. saas la mid ah ay xarumaha kalena ay howlahaas uga socon doonaan. waxaan rajaynaynaa in xaaladan waqtigeeda uu Ilaahay naga soo gaabin doono, howluhuna ay noqon doonaan sidii hore iyo si ka sii fiican. mar walba Camel Group of Companies si aad ku taqaanaan, mar walba waxay ahayd inay ama ay ku shaqeyn jirtay hab daahfuran oo ay ugu adeegayso customerskeeda, taasoo ay habsaan si habsami leh ugu sii socotay howlaheeda. waxaan rajaynaynaa in howlaha sidoodii si ka sii fiican u sii socon doonaan, ay customerskan sida uga barteen Camel Group of Companies ay howlahoodii ay uga heli jireen uga heli doonaan iyo waqtigooda insha Allah. Maxamed Ibrahim Siyaad, telefishinka caalamiga Hiiraan Bile, beledweyne.